kulan wacan oo wanaagsan daawadeel kuna soo dhawaada page-ka YouTube-ka Kalkaal Media oo aad ka daawataan warbixino kala duwan warbixintan idinana waxay ku saabsan tahay duufaano xoogan oo ku wajahan deegaana ka tirsan Somaliland iyo Somaliland oo Digniin ka soo saartay. Somaliland ayaa shaaca ka qaaday in duufaano xoogan ay ku fooleeyeen deegaanada Somaliland. Ahmed Moomin Said, wasiirka wasaaradda beeraha ee Somaliland oo saxaafadda kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay jiraan cabsi xoogan oo ku aadan duufaanta. waxa uu tilmaamay in duufaantan ay wadato roobab lixaad leh oo saameyn weyn ku yeelan kara inta badan deegaanada Somaliland. wasiirka ayaa waxa uu cadeeyay in duufaanta dabaysha wadata ay ku soo beegan tahay bisha soo socota ee Oktoobar iyo bilaha ka dambeeya sidoo hadalka u dhigay. roobka duufaanta wata ayuu sidoo kale ta sheegay in xoogooda ay saameyn ku yeelan doonaan gobolada bariga ka ah Somaliland. waxauna ku baaqay in mar walba shacabka laga doonayo inay u diyaar garoobaan. sidoo kale waxa uu tilmaamay in shacabka Somaliland looga baahan yahay in ay sameeyaan foojignaan dheeraad ah oo looga baahan yahay in ay wada shaqayn dhow la yeeshaan hay'adaha shaqada kule ee Somaliland. hadalka wasiirka beeraha Somaliland ayaa ku soo beegmaya xilli Somaliland ay hore u martigelisay roob duufaano wata taasi oo ay saameysay dad badan oo ku dhaqan deegaanada Somaliland. intaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynaa warbixintii aynu kaga hadlaynay duufaano xoogan oo ku wajahan deegaana ka tirsan Somaliland iyo wasiirka beeraha oo Digniin Culus u diray shacabka reer Somaliland. haddii aad ku cusub tahay channelka Kalkaal Media fadlan ha hilmaamin subscribe-ka si aad ula socotid wararkeena iyo warbixinadeena dambe insha Allah.